agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska, madaxa hay'adda UNICEF Adams iyo consultant-ka agaasimayaasha waaxaha wasaaradaha maaliyadda iyo wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada iyo dhammaan tiimka kale dhammaantiin aan ku salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta waxaynu isugu nimi kulankan oo runtii ku saabsan dib u eegis lagu sameeyey wadaagayaasha miisaaniyadda kala duwan. Waxaa dib u eegis lagu sameeyey 4 wadaage: waxbarashada, caafimaadka, arrimaha bulshada iyo biyaha. Maanta mid ka mid aynu joognaa kii qoyska iyo dadka bulshadeena wasaaradda miisaaniyadda runtii aynu gelino ama budgetkeena dowladda ha noqoto ama ta kale ayaynu eegeynay budgetkeenu gelino iyo adeegyada ay helaan sektaradaasi kala duwan baynu eegeynay inay tahay mid iyo maxaa laga gaadhayo deliverable aynu ka marka hore waxaynu istarigaraynay budgetka ama labaadkana waxaa la eegayay bal adeegyadaasi siday saameyn ugu leeyihiin bulshadeena. runtiina waa waqtigii saxda ahaa oo waqti aanu diyaarinayna miisaaniyaddii bay kusoo beegantay. marka wadaagihii koowaad baa kolley riboodkiisa laynoo soo bandhigayo faa'iideed garaynaynaa. taasi kolley waxay keenaysaa inay miisaaniyaddanu samaynayno xog baynu haynaa aynu ku salayn doono insha allah. marka waxaan aaminsanayn inay tahay waqtigii saxda ahaa markaynu sektaradaasina waa kuwayna ugu muhiimsan xogaha aynu ka helo oo runtii aanu uga mahadnaqayno hay'adda UNICEF oo inaga caawisay inaynu xogtaa diyaarino. waxay inoo noqonaysaa markaa meel aynu ka duulo oo diyaarinta miisaaniyaddeena iyo waxaa kaloo reflection ama ka heli doonaa feedback siday saameyn ugu yeelatay bulshadii miisaaniyaddii hore isticmaalay iyo delivery baliskii maxaa la gaadhay, sidee si fiican loogu isticmaalay. marka xogahaasi runtii waa xoga aynu ku salayn doono diyaarinta miisaaniyaddeena soo socota. waxaan u mahadnaqayaa tiimka wasaaradda iyo tiimka UNICEF iyo consultant-ka iyo waaxda budgetka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda hawshan inoo soo qabanqaabisay. dhammaantiin waa mahadsantihiin, waana rajaynaynaa inay wixii halkaa ka soo baxaa insha allah ku salayn doono miisaaniyaddeena inay wax badan ka qaban doono inagoo caawinayna bulshadeena iyo dadka nugul. waa mahadsantihiin, waana inoo furayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.